Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan rabaa inaan bilaabo course ku saabsan computerka. Basic ayaan ka bilaabayaa. Haddii aan background-kayga ka hadlo, aniga waxaan aan dugsigayga sare kusoo qaatay magaalada Muqdisho, gaar ahaan iskuulka Imaam Shaafici. Kadib waxaan imaaday magaalada London, cariga UK, oo aan ka galay college. Waxaan ka bartay cilmiga IT-ga. Waxaan ka qaatay diploma. Computerka iyo luqadda ayaan bartay. Kadib waxaan galay machad ku yaalo magaalada London oo uu maamulo Maal Cabdallah. Waxaana machadkaas la yiraahdaa GlobalNet ICT Solution. Marka waxaan ka qaatay koorsyo badan ayaan ka qaatay. Marka koorsadaas waxaa kamid ahaa A+ ayaa kamid ahaa, oo computerada si loo furfuro, loo xirxiro, loo cilad bixiyo, softwareka loogu shubo, Windowska sida loogu shubo, Officeka sida loogu shubo, sida loo cilad bixiyo, antiviruska sida loogu shubo, sida loo scan gareeyo oo viruskii looga dilo, looga bixiyo. Kadib waxaan qaatay Network+ oo ah computerada si la isugu xiri lahaa, data si u share gareyn lahaayeen ayaan ka bartay. Network+ waxaa waaye waa basic networking waaye, oo dhowr computer ayaad isku xirxiraysaa. Waxaad baranaysaa keebalada la isticmaalo, fiilooyinka la isticmaalo, switchyadii iyo hababkii iyo router-ha oo bilow ah ayaa la isticmaalaa. Marka A+ ayaan haddana qaatay. Kadib waxaan qaatay Windows XP oo Microsoft Windows oo computerada markaas jiray ku shaqeynayay. Kadib waxaan qaatay server. Alxamdulillah. Marka hadda waxaan u shaqeeyaa company la yiraahdo IT Lifecycle. Waxay qabtaan gaar ahaan anaga waxaan qabanaa upgrading ayaan sameynaa, oo computerada companiyada ka guuraayo Windows 7-ka, Windows 10 u guuraayo ayaan ka caawinaa. Company-geena wuxuu contract ka qaataa companiyo waaweyn oo all over the world ah, Europe, Asia, America. Marka alxamdulillah. Hadda marka waxaan go'aansaday inaan course-kan aan bilaabo. Bilow ayaan ka bilaabayaa. Marka haddii aan usoo laabto cashirka maanta aan qaadanayno waxaa waaye hardware and software. Labadan ayaan qaadanaynaa, hardware and software. Computerka labadaas ayuu kala baxaa, hardware and software. Hardware-ka is any parts of computer system you can use or touch. Waxaa waaye wax aad taaban kartid, oo aana arki kartid waaye. Marka waxaa kamid ah mouse-kii ayaa kamid ah, keyboard-kii ayaa kamid ah. All waxaa waaye hardware waaye, waa la taaban karaa. Monitor-ka ayaa kamid ah, laptop-ka caadiga ayaa kamid ah. Marka hardware-ka waa wixii la taaban karo oo aana arki kartid waaye. Software-kana waa a set of electronic instructions that tell a computer what to do. You cannot see or touch software, but you can see or touch. Macnaha waa taaban kartaa oo ma taaban kartid, waa arki kartaa software kaliya. Hadda computerkan presentation-kan hadda aan isticmaalayno kale waa software application waaye. Marka waa arki karnaa laakiin ma taaban karno. Waxa computer gudihiisa ku jiro oo dhan waa software. Software waxaa kaloo kamid ah Microsoft Word-ka ayaa kamid ah, Excel-ka ayaa kamid ah, Acrobat Reader-ka, Internet Explorer-ka ayaa kamid ah, iyo wixii lamid ah. Marka labadaas ayaa loo qeybiyaa hardware and software.
marka haddaan hoos usii soconno hardwareka ayaa waxaa loo sii qaybinayaa maaragtay laba qaybood. macnaha computerka wuxuu u shaqeeyaa hardware and maaragtay software. marka hardwareka ayaan sii qaybinaynaa. waxaan maaragtay aan dhehnaa input devices and output devices. input deviceska waxaa kamid ah haddii aan qeexno input deviceska waa maaragtay an input device lets you to communicate with you. You can use input devices to enter information and issue command. maaragtay data aan maaragtay geliyo sida keyboardka for example oo kale keyboardka and mouseka and maaragtay and joystick. macnaha waa taaban kartaa waa maaragtay waa keyboardkii waa taabanaysaa maaragtay you press enter, you press M, you press A. macnaha information ayaa gelinaysaa dan wuu kusoo saaraya. marka waa input devices. mouseka waa maaragtay click ayaa ku siinaysaa asagana maaragtay markaad click ku siiso waxbaa kuusoo boodaya marka click markaa ku siiso macnaha click ayaa ku siinaysaa. marka waxaan dhihi karnaa waa input devices. output deviceska ayaa kuusoo haray maaragtay waxa waaye output devices lets communicate with you. This device displays information. macnaha waxay soo saaraan muuqaalo oo maaragtay screenka ayay kasoo saaraan. waxay create print copies. macnaha printer ayaa sameeyaan oo maaragtay waraaqa ayaa laga soo daabacaan oo maaragtay laga soo saaraa. printerka oo kale ayaa kamid ah. soundka ayaa kamid ah. monitorka ayaa kamid. soundka markuu dhaco cod ayay soo saaraan. monitorka ayaa kamid ah. waxbuu ku tusinayaa. printerka waxbuu soo saarayaa. speakeradii ayaa kamid ah oo maaragtay oo cod aad ka maqlaysid oo kale iyo maaragtay oo maaragtay kulli waxaa la yiraahdaa output devices ayaa la yiraahdaa. marka labadaas ayay maaragtay hardwarekina usii qaybsamaa. marka insha Allah cashirkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.